السلام عليكم داوديا maanta waxaan idin sharxi doonaa film Mysteria magaciisuna yahay Mist intayna filmka u guda galin daawadayaal waxaan idin codsanaynaa like inaad saartaan haddii aad nagu cusubtayna subscribe inaad saarto filmka waxa ku bilaabmaya David oo ah actorka filmka sawir beentinana sameynaya oo ah filmka la sii dayn reebo caawa kadibna waxa ku bilaabmi doona duufaan aad u xoog badan oo gilgilaysa gurigiisii studio-giina baabiinaysa duufaantu korontadii ayay daminaysaa isla markaa geedo waaweyn ay soo jartayna waxay ku soo lalinaysaa studio-giisa iyo aqalkaba sidoo kale waxay burburinaysaa sawiradiisii ugu dambeeyay ee uu gacantiisa ku sameeyay subax markuu waagu bariyo David iyo wiilkiisa yar ee 8 jirka ah Billy iyo xaaskiisa Steve waxay ka nadiifinayaan kana ururinayaan burburkii ku yimi studio-ga iyo gurigaba isla markaa waxay qiimeynayaan dhibaatada ay u geysatay duufaantani gurigooda meelaha ka baxsan waxay ogaanayaan doomihii qoysku lahaa dhammaantood inay duufaantu burburisay isla markaana geedo waaweyn oo ku yaalay xayndaabka harada intay soo jartay duufaantu ay dusha uga riday doomahoodii sidoo kale waxay booqanayaan xaafadda la jaarka ah waxayna la kulmayaan Brett oo ah lawyer ninkii jaarkooda Brett waxa uu weydiinayaa David haddii uu suuqa aadayo wuxuuna weydiisanayaa inuu raaco si uu u soo iibsado cunto iyo waxyaabihii uu u baahnaa waayo David waa u jeedaa gaadhigii ninkani lahaa in geed duufaantu dusha ka saartay kadibna David iyo wiilkiisa yaraa ee Billy iyo ninkii jaarka la ahaa waxay u ambabaxayaan magaaladii inta supermarket ku sii socdaan waxa weydaaranaya gawaadhi waaweyn oo leeyihiin kombaniyada korontadu sidoo kale waxay arkayaan gaadiid badan oo ciidanka militarigu leeyihiin kuwaas oo ku jahaysan xarumaha base-ka u ah militariga markay gaadhaan baqaarkii weynaa ee alaabta laga soo gadanayay waxay la kulmayaan dad aad u soo buux dhaafiyay oo guranaya sahayb badan sidoo kale goobta waxa ku sugan 3 nin oo militariya kuwaas oo fasax kaga soo maqnaa ciidankoodii waxa dukaankii soo galaya nin boolisa una sheegay 3 nin in fasaxii laga hakiyay oo dib ugu noqdaan xarumihii ay ka shaqeynayeen ee ciidanka 3 miro qura ayay haystaan si ay ugu alaabaystaan wax yar kadib waxa dukaanka orod ku soo galaya nin lagu magacaabo Jeff Miller oo dhig ka da'ayo isagoo cabsi badan ka muuqato ayaa wuxuu ku qaylinaya ceeryaantan hadhaysay kuna gadaaman dushooda inay ku dhex qarsoontay waxaanu isagu markaa garanayn waxay ahaayeen balse naftiisa argagax weyn ku abuuray waxaas oo weeraraya dadka isla markaana qof kasta dilaya kadibna dhammaan dadkii store-ka joogay waxay eegayaan dibadda waxaana u muuqanaysa ceeryaan wax kale oo u muuqanayaan ma jirayaan si kastaba ha ahaatee gabadh store-ka ku sugan ayaa waxay sheegaysaa in aad uga warwarsantay laba carruur oo ay dhashay ee guriga kaga timi waxayna u sheegaysaa inay doonayso inay ka baxdo baqaarka oo gurigii aado si ay carruurteeda uga war hesho iyadoo ka codsanaysa inuu jiro qof iyada tabaruc u sameeya weheliyana balse qof kasta waa iska dhigatiraya sidaad ay baqaarka uga baxdo David waxa uu xaqiiqsanaya inay ku sii jiri doonaan store-ka saacado badan haddaanay maalinba noqon dib ayuu ugu noqonayaa baqaarkii waxaanu aadayaa qolka uu yaalo generator-ka uu korontada ka hela baqaarka waxaanu la kulmayaa generator-kii oo qiiq sii daynaya wuxuuse maqlayaa qolka generator-ku yaalo albaabka dibadda in si aad u awood badan loo soo garaacayo taasoo ku dhow inay albaabka soo goosataba kadibna intuu argagaxo ayuu dib ugu cararayaa store-ka gudihiisii isagoo 3 nin u sheegaya wixii uu la kulmay iyo wuxuu maqlay laakiin ma rumaysanayaan waxaan uu u sheegayo sidoo kale David waxa uu sheegayaa in generator-ku qiiq badan sii daynayo haddii aan la hagaajinna aanu sii shaqayn doonin kadibna 5 qof oo ka mid ah dadkii ayaa waxay aadayaan qolkii generator-ku yaalay si ay u soo hagaajiyaan ugu dambeyn waxay ogaanayaan mishiinka dhuuntiisa inay wax gufeeyeen waxaana loo baahanayaa qof naftiisa u hura oo dabadda intuu baxo dhuunta waxa mishiinka ka haysta ka soo saara wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah kuwii store-ka joogay ayaa odhanaya anaa baxaya kana soo saaraya dhuunta mishiinka waxa gufeeyey balse David waxa uu ku adkaysanayaa inaan qofna dabadda u bixin kii yaraa oo iska dhagatiraya David hadalkiisa ayaa albaabkii weynaa ee qolka generator-ku yaalay furaya sidaadu u furana ceeryaan ayaa soo gelaysa ceeryaantaas oo si aadir ku bilaabmaysa markay ceeryaantii soo xoog badato isla markaa qof kasto iyaga ka midina wali aanu dareen qaadan ayaa waxa dhacaysa wiilkii yaraa in bahal ma soo eegi lugta qabto dabaddana u jiido kadibna wiilkii yaraa wuxuu qabsanayaa albaabka isla markaa David ayaa caawinaya oo qabanaya soo jiidaya balse waxa soo badanaya gacmihii masaska ahaa oo gabi ahaanba wiilkii yaraa dabadda u dhufanaya isla daqiiqadaha David ayaa faash soo qaadanaya waxaanu ka jaraya madaxa kadibna dhammaan nimankii ku sugnaa qolka generator-ka shoog ayaa ku dhacaya waxayna dib ugu yaacayaan store-kii
oo gelayaan iyagoo u sheegaya ninka Brent la yiraahdo waxay indhahooda ku arkeen ee argagax geliyay balse waa iska diidaya mana aaminayo wuxuu odhanayaa nimankani waa qaar aniga igu dheedheelaya kadibna Brent waxay tusayaan nimankii dabadii laga soo jaray bahalka Brent isagoo caqligiisa la kaashanaya waxa uu odhanayaa tani caddayn uma noqonayso in ceeryaantu ay wadato bahal kadibna Brent waxa uu abaabulaya koox ka mid ah dadkii si ay dabadda ugu baxaan indhahoodana ugu soo hubiyaan in waxa jira ay ceeryaan u tahay Brent iyo groupkii la socday marka ay dabadda u baxaan nin ayaa odhanaya waxaan aadayaa baakinka si qori aan uga soo saaro gaadhi ninka la leeyahay kadibna aan dukaanka dib ugu soo noqdo kadibna David ayaa u soo jeedinaya in xarig dhexda lagaga xidho ninkan qoriga doonaya xarigii marka lagu xidhana xariga madaxiisii waxaa qabanaya nimankii stoorka ku jiray halkii rajadoodu ahayd inuu ninkani qoriga soo qaado oo uu soo noqdo xarigii ayaa mar qura jiidmaya dhammaantoodna inta iskugu yimaadaan ayay xarigii qabanayaan balse wax ka awood weyn ayaa dhufanaya waxaana joogsanaysa awoodii dabadda ka jiidaysay kabacdina David ayaa si fudud u soo jiidaya laakiin waxay arkayaan xarigii oo dhiig badan leh waxaana argagaxoodu si labalaamaya markay arkaan qayb ka mid ah jirkii ninka oo dukaanka hortiisa ku soo dhacday markay dhacdada indhahooda ku arkaan waxay u fahmayaan Brad iyo intii raacday ee dabadda u baxday inay dhammaantood dhinteen sida kaliya ee lagu badbaadi karaana inay tahay meel xayndaaba in lagu jiro mid ka mid ah supervisorskii stoorka waxa uu damcayaa inuu u fiirsado kadibna waxa uu istaagayaa daaqadda isagoo muraayadda ka eegaya dabadda waxa ka socda kadibna cayayaan yar oo laba lugood leh oo duulaya ayaa daaqadda muraayadeedii ku soo dhacaya inkastoona shimbirtan yar iyaga dhib ku hayn haddana waxa imanaysa shimbir weyn oo 6 lugood leh taas oo ugaadhsanaysa oo cunaysa shimbirihii yaryara ee daaqadda ku soo dhacay sidaasay tahay markastoo shimbirtan weyni ay daaqadda soo weerarto si ay cayayaanka u cunto daaqadda way sii dilaacaysa oo muraayadda ayaa jabaysa ugu dambayna shimbirtii weyneed ee bahalka ay daaqadii way jabinaysaa waxaana dhacaysa shimbirihii yaryara inay gudaha u soo gudbaan oo daloolkii ka soo galaan shimbirihii yaryaraana waxay weerar ku qaadayaan gabadh ka shaqaysa stoorka dadkuna waxay isticmaalayaan majarafado sida ay ugu dilaan shimbirahan yaryar balse nasiib darrada ugu weyn waxay noqonaysaa shimbirtii weyneed ee bahalka ahayd ayaa iyaduna stoorka gudaha u soo gelaysa waxaanay dilaysaa nin kadibna waxay bilaabayaan dhuun dab sii daynaysa inay ku dilaan shimbirihii isla markaa Cali wuxuu la soo baxayaa baaskoolad waxaanu 6 xabadood ku dhufanayaa shimbirtii sidoo kale nin ka mid oo dabaqabsaday ayaa gubanaya gubashadii marka uu xanuunkii xamili waayo waxa uu ka baryayaa inay dilaan David iyo intii kale ee dul joogay ninkan xanuunka la il daran waxay u sheegayaan inuu waxoogaa sii samro David koox uu ka mid yahay ayaa damcaysa inay dabadda u baxaan oo farmasiga ugu dhow ay uga soo qaadaan dawo inta ay ku guda jiraan howlgalka ay dawada ku soo qaadayaan waxay la kulmayaan ninkii askariga ahaa ee ugu horeyntii 3 nin ee militariga ahaa ku odhan jiray fasaxii waa la idinkala noqday gabi ahaantiisba waxa isku duubay xuub caaro jirkiisoo dhanna waxa ku gadaaman nabara ka soo baxa isagoo hadli kari la oo baaxadegaya ayuu odhanaya wax kastoo dhacaya inaga ka mas'uula waxa kale oo la yaabka ugu weyn noqonaya nabar kasta oo ka soo baxay jirkiisa inuu dilaaco caarana ay ka soo dhex baxdo David iyo asxaabtiisuna waxay arkayaan caarooyin 3 lugood leh oo aad u badan halkay ka soo unkamayaan oo ay ka soo baxayaan waxayna dib ugu noqonayaan stoorkii cuntada intay dib u gurashadoodii ku guda jiraanna laba ka mid ah ayaa dhimanaya caarooyinkan oo sii daynaya xuub acidika waxay galaafanayaan nolosha mid kaloo ka mid ah raggii caarooyinkan oo cidiyo waaweyn oo leeyihiin isticmaalaya waxay weerarayaan mid kaloo ka mid ah ugu dambeynna David iyo kooxdiisu waxay ku noqonayaan stoorka iyagoo weydiinaya askari wehelinayay markay dabadda u baxeen waxa uu la jeeday askarigii ay dabadda kula kulmeen ee lahaa khalad oo dhan inaga ayaa leh askarigina wuxuu ku odhanayaa labada askari ee kale ee stoorka nala jooga ayaa si fiican idinku sharxi kara balse markay ay raadiyaan labadii askari waxay la kulmayaan labadii askari oo isdeldelay naftoodana jaray askarigan soo haray ee hadda noolna waxa uu odhanaya waxa kaliyaan ogahay waxa weeye in saynisahanadu ay heleen dariiq ay albaabada u furayaan adduunno kale iyagoo cabiro kala duwan isticmaalaya mashruucana waxay ugu magac dareen fallaadha madaxeeda gabadh ka mid ah ayaa odhanaysa albaabka ay nagu fureen saynisahanadu waa mid cadaaba haddana waxaanu maraynaa ciqaabkiisa khalad ee askartu galeen waxaynu ku odhanaysaa askarigii noolaa dembigaad gasheen waa inaad xanuunkiisa martaa oo ahayd bahladan dhiigcabka ah inaad inagu soo hagtaan balse askarigii ayaa ku ooyaya oo odhanaya anigu wax awooda maan lahayn anigu askari hoosaadun baan ahaa nimanka saynisahanada ah ayaa watay hawshan gabadha iyadoo maro dilacsan ayay odhanaysaa awoodaha ilaahay ayaynu faragashan abuurkiisana waynu ku xadgudubnay isla markaana inagoo aqoon isbidayna waxaynu isku daynay inaynu wax ka bedelno unugyada yaryar ee ilaahay noolaha ka abuuro faragelinta aynu samaynana ciqaabkeedii waa kan la il daran mid ka mid ah askartii sameeyey waxan intaa markay tiraahdo ayay si cadhale midi ula soo boodaysaa 3 jeer ayay ka duraysaa caloosha askarigii David iyo kooxdiisii oo khalkhal badan ka muuqdana waxay askarigii u tuurayaan dabadda albaabkana way ka xidhanayaan isagoo baryootomaya kadibna shimbir aad u weyn oo bahala ayaa soo gaadhaysa askarigiina way dilaysaa gabadhii iyada oo ku faraxsan ayay odhanaysaa run ahaantii caawa wayna casuunay shimbirtii waxayse tahay dad kale oo badan in loo dhigo shimbirtan mudankoodana ay marsiiso ugu dambayna David waxa uu
urursanayaa dhowr qof oo kale waxaanu damcayaa inuu baxo isagoo doonaya inuu gaari kaxaysto kana gudbo ceeryaanta dhexdeeda waxaanu nasiib wanaag helayaa meel ceeryaantu aanay jirin amba ay ku yartayba David iyo wiilkiisa yar iyo 6 qof oo kale ayaa ku heshiiyey inay ceeryaanta dhexdeeda kaga gudbi doonaan dhowr habeen iyaga oo diyaarsanaya raashinkoodii iyo saadkii ay cuni lahaayeen kadibna inta aanay bixin gabadhan iyada ah oo la yiraahdo Carmody waxay diidaysaa oo ka hormaraysaa inay dabada u baxaan iyadoo iskugu yeeraysa dadkii stoorka ku jiray oo dhan si looga joojiyo bixitaankan laakiin se David waxa uu oranayaa iga hor leexo waan baxayaa kadibna wiilkiisa yara ayaa ku raacaya mujaahidka saddexaadna wuxuu noqonayaa nin Cali la yiraahdo kadibna marka ay dhowr nin oo ku hubaysan midiyo ay wajahaan wuxuuna dhex marayaa isagoo oo dab ku furaya gabadhii ugu dambeeyna wuu dilaya isagoo madaxa kaga dhufanaya xabad taas oo argagax iyo shoog ku abuuraysa nimankii kale ee soo ataagay Cali iyaga oo dib uga baxaya kadibna marka uu dariiqi u banaanaado David iyo kooxdiisii banaanka ayay u baxayaan waxaanay korayaan gaarigii David mid kamid ah ayaa dhacaya waxaana caawinaya laba kale oo kamid ah isla daqiiqadiiba labadii caawinayay waxa soo weeraraysa caaradii weyneed waana dilaysaa qaar kalena dib ayay ugu cararayaan bakhaarkii iyadoo laga furayo loona ogolaanayo inay galaan qofka ugu horeeya gaariga wuxuu noqonayaa Cali balse shimbirtii markii horeba dishay askariga ayaa isna haleelaysa oo dilaysa David iyo wiilkiisii yara iyo laba dumar oo mid islaan tahay oo uu soo raaco ninkii ugu horeeyay ee uga digayay markii horeba in ceeryaanta bahal ku lamaan yahay ayaa nolol ku galaya gaarigii David intaanu gaarigii dhaqaajin waxa uu arkaya qori uu soo tuuray Olia nin la yiraahdo nasiib wanaagna qoriga wuu haleelaya gacantaanu ku dhigaya iyadoo shimbirtii bahalka ahayd gaariga dusha ka soo weeraraysa David gaarigii ayuu stoorka ka hor dhaqaajinaya iyadoo gabadhii Carmody la oran jiray iyo intii stoorka ku hadhayba ay xaqiiqsanayaan waxa ay ka badbaadeen naftooduna halis ay geli lahayd hadaanay gabadha qaadan taladeeda David iyo wiilkiisii yara iyo saddexdii kale ee la saarnaa gaariga muddo saacada ayay dhex qaadayaan ceeryaantii iyagoo raadinaya bal inay wax caawimo ah uun helaan balse nasiib darro gaarigii ayaa gaasti ka dhamaanaysa halka ugu horeysay istaagaana waxay noqonaysaa David gurigiisa halkaas ay kula kulmayaan xaaskiisii oo dhimatay xub caarana ku duuban yihiin wadada weyn bartamaheedana waxay ku arkayaan gawaadhi badan oo dhanka kale ka rogmay iyo gawaadhi kale oo ay ka mid yihiin school bus oo gabi ahaantoodba xub caara ku gadaaman yahay waxa kale oo muuqanaya dad kale oo badan oo dhintay iyo arday ay ku wareegsan tahay xub caaro waxa ugu daran ee la kulmaan se wuxuu noqonayaa bahalkii ugu weynaa ay arkaan kaasoo leh 6 lugood oo aad u dhaadheer una waaweyn isla markaana bahalkan dushiisa oo dhan ay ka soo taagtaagan yihiin kumanaan gacmood oo masaslamoodo qiyaas ahaanna xajmigiisa uu leegay dhowr dhisme oo la isku daray dhererkiisuna uu yahay mid aan la qiyaasi karin oo xadka baxa waxa kaliya ee u muuqanayna ay yihiin lugihiisa halka madaxiisu uu cirka ku shareeran yahay dhanka kale maadaama gaarigooda gaasti ka dhamaatay dhinac ayay ku baakin garaynayaan ilaa iyo haddana uma muuqato rajo ay kaga bixi karaan ceeryaantan haddana wiilkiisii yara ee Billy hurda ayaa la tagtay maadaama carruur yahay Davidna si aamusnaan ku jirto ayuu ula soo baxayaa qorigiisii isagoo indhaha kala hadlaya asxaabtiisii kale ee kula jirtay gaariga David waxa uu sheegay asxaabtiisii in qoriga ay 4 xabadood oo qori ku jiraan hadda taa micnaheeduna 4 qof ayaa lagu dili karaa hal qof baanay rasaastu ka dhamaanaysa waxaana go'aanku noqonayaa in David uu soo haro oo isagu bahasha uu isku dhigay cunto run ahaantii marka uu xabada ku ridayo ee wiilkiisa uu damcayo inuu dilo xanuun badan ayay ku beeraysaa waayo waa arrin aad u adag ilma aad dhashay inaad gacantaada ku disho balse go'aan ayuu qaadanaya waanu u dhamaynayaa afartoodiiba kadibna David intuu gaarigiis kaga dego ayuu malagiisa doonanaya waxaanu meel dheer ka maqlayaa sanqadh aad u weyn oo dhinac kaga imanaysa isagoo u haysta inay tahay shimbirtii weyneed ayuu u qaylinaya waxaanu ka dalbanayaa inay u timaado oo nafta dhaafsiiso halka uu ka filayay shimbirtii bahalkayd waxa kaga soo baxaya gaadiid badan oo militariga ah iyo taangiye ay wataan kuwaas ay weheliyaan askar militari oo ciida ka fara badan oo ku hubaysan hubkoodii waxa gaadiidka saaran dad shiciba oo laga soo ururiyay meelaha intii noolayd waxaana kamid ah gabadhii bilowgii filimka markii mashaakilkani bilaabmay caruurteeda damacday inay u tagto ee kaga timi stoorka isagoo xaqiiqsaday inay weli nooshahay labadeedii carruurna badbaadisay isla markiibana wuxuu xaqiiqsanayaa inuu ilmihiisii yaraa iyo 3 qof oo kale oo waxba galabsan uu gacantiisa ku dilay daqiiqado yar ka hor haddaanu samayn lahayna ay badbaadi lahaayeen hadda wuxuu ku ciishoonayaa ficnaan lahayda haddaydan stoorkii ka soo bixi lahayn Davidna murug iyo ciil aawadii intuu xamili waayo ayuu dhulka ku dhacaya waxaana soo gaaraya 2 askari oo garbaha qabanaya iyagoo aan ka warqabin waxa uu David sameeyay gabagabada filimkuna waxay noqonaysaa David oo nolol iyo geeri kala jeclay daawadayaal waxaan idinku codsanaynaa like inaad saartaan haddii aad nagu cusubtayna subscribe inaad saartaan